بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي بدأ وضيال ملك استاجوكتان كسو دوادا وركيغا دهورنمو oo aad xilgan oo kala ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa bilowday howlgallo lagu baneynayo wadooyinka isku xidha degmooyinka Gacan Libaax iyo Axmed Macalin Harun gaar ahaan wadada Dable Taagay. waxaana howlgalladaasi kala qayb galay mas'uuliyiinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa bilowday baneynta wadada xaafadda Dable Taagay ee caasimadda Hargeysa waxaana wadadani ay isku xidhi doontaa degmooyinka Gacan Libaax Axmed Macalin Harun. howlgalkaasi ay dowladda hoose caasimadda Hargeysa ay ku baneynaysay waxa goobjoog ka ahaa wadadaasi agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda xogayaha fulinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa maayir ku-xigeenka caasimadda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. bulshada ku nool xaafadda Dable Taagay ayaa soo dhaweeyay isla markaasina dowladda hoose caasimadda Hargeysa tilmaamay in ay ku garab taagan yihiin baneynta wadada isku xidhi wadada xaafadda Dable Taagay iyagoo sheegay in ay wadadu ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha iyo socodka gaadiidka iyo bulshadaba. shaqadaydii ayaan haddana ku faraxsanahay dawladda Soomaaliland maanta alxamdulillah ma baanaan hayna maanta baabay noo timi baanaga Dable Taagano hayno waanu ku faraxsanay haddii nusbaloodno hadho nusbaloodkaanu ku faraxsanay toobalaykaanu rabnaa dawladdaanu rabnaa dadkii yacni ku faraxsanaa dawladda ayaanu nahay ilaahay maayarkayaga iyo guddoomiyeyaashayada mid walba wax khayr la Allaha siiyo way mahadsan yihiin wax khayr la Allaha siiyo boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin wax walba wadada ka wanaagsan imika gurigaygii waa taa duminaysa haddana waan ku faraxsanahay magacaygu waa Ibrahim waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maayar ku-xigeenka iyo dhammaan xildhibaanada wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha xogayaha xildhibaan Ismaaciil Jaamac Xirsi dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin iyo dhammaan howlwadeennada kale insha Allah ilaahay waxaan ka baryaa inay wadadan noqoto wada anfacda magaalada iyo dhammaan wadanka. xogayaha fulinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa maayir ku-xigeenka caasimadda ayaa iyaguna halkaasi ka jeediyay hadal ku qotomay inay dowladda hoose caasimadda Hargeysa ay ka go'an tahay inay dhammaystirto wadooyinka xidhan iyo kuwa dayactirka u baahan. marka hore waxaan halkan mahad uga soo jeedinayaa dadka xaafadda degan xaafad cagaf la geliyay oo qof waliba wixiisa furanayo oo askar u baahnayn oo nin waliba ku leeyahay wadada iyo calaamadii oo qof waliba ku leeyahay wadada annaga u baahan oo aan jaafa jiriqiyo waxaynu shubida jirnay aanay jirin aniga waa ii koow dhowr iyo 20 sanadood dawladda soo ka shaqeynay dawladda hoose 27 sanadood baa ka shaqeynaya waa ii koow oo qof waliba aqalkiisa bila askari isagu sii furanayo horta xaafadan aad baan u hambalyeeynaya waxaan leeyahay inta yare hadhay la calaamadiyayna galabta ayaa carrakaawada la soo dhigay xagga hore way soo dhamaato waa la socotaan xaggii hore waa gebagabo galabta hore bulshaatadii baa lagu shubaya waa la garaacay waxaan leeyahay birahan tan waanu calaamadinay mid waliba wadada dhex taala qolada shirkadaha leeyahay war wadada waa la sameeyay dadka ha cadibinay dadkii meesha deganaa guryahoodii furtay idinkuna galabta u soo dirta cidii idin fur lahayd waxaan maanta ku faraxsanahay waxa weeye wadada maanta soo gaadhay dadweynaha ku nool Dable Taagay haddaba sida la sheegay wadadu way soconaysaa istaagina mayso halkan waxaan kala ilaa 150 kilo waa lagu ridayaa 200 iskaga dhaxaynaysa wadooyinka gudbana waa loo sameyn doonaa insha Allah taala. gabagabadii waxa halkaasi hadal ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Naasir Ciidid oo dowladda hoose caasimadda Hargeysa ku bogaadiyay howlgallada ay ka wado caasimadda Hargeysa kuwaasoo kor lagu qaadayo bilicda caasimadda iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. shaqadan dowladda hoose ay qabatay waa mid kulay maalin walba ay qabato oo marba xaafaduna ay ka qabato maanta mar hadii la sano kadib Dable Taagay la soo gaariyo laamay loo doonayo waa alxamdulillah rabbil caalamiin aad ugu mahadsan yihiin iyadoo cidlaaban halkan joogaan ogaan dowladda hoose ka shaqeynayay oo hal bool iyo hal sandaqad midna ka dhisnaan halkan ayaan maalmo mari jiro dowladda shaqada dowladda hoose ka mid aha maanta wada hadii dowladda doonayay maxay laamida loo sameeyo aad iyo aad ugu mahadsan dowladda hoose iyo ganacsiga ka qayb qaadatay. gudoomiyaha gobolka Gabiley oo weheliyo isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolkaasi ayaa kooxa ka tirsan dhaqaatiirta xanaanada xoolaha u kala diray deegaanada hoos yimaada gobolkaasi Gabiley halkaasi oo ay kaga shaqeyn doonaan caafimaadinta xoolaha ku sugan deegaanadaasi.
wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland oo dardar gelinaysa la dagaalanka xanuunada ku dhaca xoolaha ayaa wasaaraddu waxay gobolada dalka Somaliland oo dhan ka kala dirtay tiiman u bixi doona degmooyinka gobolada Somaliland halkani waa Gabiley waxaana saakaysu duwa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga gobolka iyo barasaabka gobolka Gabiley ay si wada jira halkani waa xarunta wasaaraddu ku leedahay gobolka Gabiley ay ka kala direen tiiman dhakhaatiir oo kala bixi doona degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley dhakhaatiirtaasi oo ka qayb qaadan doona talaalka iyo daweynta xoolaha oo ay ku maqnaan doonaan hawlgalkaasi muddo 2 bilooda goorna waxa halkaas ka aliistuwa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga gobolka Gabiley Cali Maxamed Cabdilaahi oo faahfaahiyay tirada xoolaha ah ee daweynta iyo doona waxaana uu yiri ugu diyaar ah oo gudoomiyahan keenay 2 tiim oo insha Allah waxaan ku horay gobolka Gabiley intuu ka kooban yahay u bixi doona 2 tiim oo wada talaalkii sanbabka riyaha waxay muddo 2 bilood ay ka shaqeyn doonaan gobolka saadaradeed waxa kale ay magaranaysa ka shaqeynayaan oo hayaan hawl adag oo kale oo iyana daaweyntiya marka 2 tiim muddada 2 bilood waxaan ku waxa gobolka 2 qaybood buu kala qaateen qaybtan bariga ilaa aga bari ilaa ale baday ee Gabiley ka xigta bariga tiim baa ku baxayo 2 bilood 60 cisha ka shaqeyn doona hadii la dhaha tiimka kalena wuxuu baxayaa galbeed isha gudban edegan ilaa geed balaad ilaa magaranaysa degmada wajaale inta u dhaxayso dhan ay ka shaqeyn doona hadii la dhaha marka insha Allah waxaan ku oray dadweynahan waxaan leenahay u diyaar garooba 2 bilood ka faa'iideysta wixii xoolo xanuunsanaya iyo wixii magaranaysa talaalka riyaha 170,000 oo neef oo riyaa iyo 120,000 oo neef oo la daweynayo xoolaha oo isku jira ido riyo geel iyo gamaan wixii dadweynuhu leeyahay looda tiimka kalena wuxuu baxayaa galbeed marka gudoomiye insha Allah waxaan ku oray saasad diladana naga horeyn doontaan saakana way kala baxayaan guud ahaan gobolada Soomaaliland dhanna waa laga wada bilaabay talaalkii iyo daaweyntii hadii la dhaho barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Ismaan Xaaji Axmed ayaa halkaasi ka hadlay oo ugu baaqay dadka xoolo dhaqatada inay ka faa'iideystaan talaalkan iyo daweyntan xoolaha waxaana uu yiri halkan maanta waxaa ka ama baxaya 2 tiim oo u kala baxaya degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gabiley ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu ay ugu tala gashay in 2 hawlood laga qabto oo kala ah talaalkii sanbabka iyo daaweyn isugu jirta xoolaha kala duwan ariga iyo idaha iyo looda iyo geela intaba runtii fursadaasi waa fursad runtii aan jecelnahay inay ka faa'iideystaan dadweynaha ama deegaanada xoolo dhaqatada ah ee gobolka Gabiley in ay si wacan uga faa'iideystaan oo runtii xilligan waa xilligii jiilaalka oo xooluhu aad moodid in ay runtii iska yareytaal daran yihiin haddana wixii xanuuna in laga daweeyo lagana talaalo muhiimad gaar ah bay u leedahay 2 arrimood baan doonayaa in aan runtii halkan warbaahinta uga gudbiyo qodob waxaan magaranaysaa ku dhiirigelinayaa weynaha ama deegaanada xoolo dhaqatada ah ee gobolka Gabiley in talaalka iyo daaweynta ay jaaniska 2 bilood ka faa'iideystaan oo ay runtii xoolaha u keenaan si xanuunada iyo waxyeelada ay qabaanba looga talaalo loogana daweeyo marka waxaan leeyahay aad uga faa'iideysta runtii waa mashruuc ballaaran oo runtii fursad aad hesheen weeyaan in fursadda laga faa'iideysta ayaan dadweynaha iyo deegaanada gobolka Gabiley 2 bilood ayaan runtii iyagana ku boorinaya waxaan kaloo halkan iyagana magaranaysaa daaran siinaya hawlwadeenada shaqadan haya ee wasaaradda xanaanada xoolaha duwaha iyo tiimka dhakhaatiirta la joogta iyo hawlwadeenada kaleba runtii iyaguna muddada ay runtii 2 bilood ay duurka ku maqan yihiin in iyaguna runtii dhiirigeliyaan dadweynaha runtii shaqada ay qaranka u hayaan runtii si laban oo runtii ay hawsha iyaguna u dhabar adeegaan 2 bilood ay runtii iyaguna ay hawsha ay u ambabaxeen way la xajii telefishinka qaranka Gabiley Allah u naxariistay waxa degmada Ceelaf weyn lagu sameeyay aas qaran sarkaal ka tirsanaa ciidanka birmadka Somaliland oo halkaasi ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wax asqaran loogu sameeyay degmada Ceelaf ee gobolka Sanaag marxuum Aadan Cismaan Aadan oo ka tirsanaa ciidamada birmadka Somaliland oo ku sugnaa degmada Ceelaf ee gobolkaasi Sanaag oo shalay askari ka tirsan ciidamadiisa birmadka ay xabadi kaga dhacday waxaana aaskan askarigani ka soo qayb galay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland Sarreeyo Guud Cabdi Xasan taliyaha howlgelinta ciidanka booliska Somaliland taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag iyo saraakiil sasar oo ka tirsan ciidanka qaranka iyo waliba maamulka degmadaasi Ceelaf weyn ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliska Somaliland iyo waliba maamulka degmadaasi Ceelaf weyn kuwaas oo dhamaantood ba Alle uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo samir iyo iimaan ka siiyo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan maanta halkan degmada Ceelaf weyn aas qaran lagu sameeyo marxuum sarkaal xigeen ciidanka booliska ka tirsanaa lana oran jiray
aadan cismaan aadan xaaji lagu naanaysi jiray nin aad u qiimo badan ciidanka booliiska ka mid ahaa raggii muddada dheer soo shaqaynayay ahaa oo shay xabadi ku dhacday gacankan xaq daran ciddii xabaddaa ridana way xidhan tahay xabsiga cirigaabay ku jiraan waxaanu tacsi u diraynaa ehelkii marxuumka waalidkii walaalihii qaranka uu ka baxay ciidanka booliiska ummadda reer somalilan dhammaan samir iyo iimaan isagana ilaahay ha u naxariisto inaa ilaahi raajicuun aadan cismaan aadan wuxuu ahaa sarkaal xigeen ka tirsan ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan qaybta bariga hargeysa waxaanu howlgal u joogay degmadan ceelaf weyn gacan ka xaq daran ayaa dishay kulleyba ciddii falkaa geysatay gacanta ayaanu ku haynaa sharcigana waa la mari doonaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan ciidanka booliiskana waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaanteen allah inaga siiyo waxaan halkan aas qaran ugu samaynaynaa maanta allah u naxariistay marxuun aadan cismaan aadan oo xaaji lagu naanaysi jiray ka tirsan ciidanka booliiska magaaladan ceelaf weyn ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu addoon wanaagsan buu ahaa madaxdii meesha ku haysay baanu ahayn addoon aad u wanaagsan buu ahaa ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo qaranka somalilan ciidanka booliiska iyo khaasan reeska qoyskii iyo qaraabadii uu ka tegayna waxaan leenahay samir iyo iimaan ciddii falkaa geysatayna sida la sheegtay gacantan ku haynaa xabsigay ku jirtaa sharcigana waa la marin doonaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto baan leenahay waxaana la isla qiray oo markhaati loo firay inuu ahaa nin ahli cibaadaha mu'adinkii u addimi jiray ciidanka tukanaya inuu ahaa mu'adiniinta ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday maalinta qiyaamaha inay dadka ka qoordhaadheer yihiin ilaahay waxaan u baryaynaa inuu ka qoordheeraado kuwa ka qoordheeraada maalinta qiyaamaha inuu noqdo samir iyo iimaanna ilaahay waxaan uga baryaynaa qoyskii eheladii ciidanka booliiska somaliland iyo qaranka somaliland samir iyo iimaan baanu ilaahay uga baryaynaa عوض خير قبلنا إلهي نكسي وأنا إلهي نكسي. إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت حقيقة وحا نف كستوا حلي لا ضحي أي موت كوي من دونه سكسنا هو يمادو سيد الشيء حاجي وحوها نينو عبادة أنا قلت نرجع قد ما هن أيام كوكبنا كنت وحنا عبادة بدن وحوها رجع aan soran karo hadda ciidanka jira biliiska shakhsiyaadka ugu wacan buu ahaa dalka koowaad ahayn ka labaad ayuu ahaa wuxuu ahaa nin salaad badan waxaan maqaati furaynaa inuu salaada subax safka hore ku tukan jiray masjidka dhexe iyadoo aan magaalada aan la socon warka intuu ka soo jarmaado ima jiray safka dhexe waxaan qoraynaa inuu ka adibi jiray ciidanka dhexdiisa waxaan qoraynaa inuu ahaa nin aan balwad hadda aan lahayn inta dambe aan ku aqoonaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un halkan taasi waxaan uga diraynaa qaranka Soomaaliland qoyskii iyo qaraabadii uu ka dhintay marxuumkaasi warka degmada markaan gallo degmada waa nabad wax dhiboo ka jira ma jiraan guddiga nabadgelyada aan lagu dhahay wax dareena oo macnaha xoriyaan dhiboo ka jira degmada ma jiraan intan dhacday ma aha mid cid kala dhex martay waa shir rabbaani oo sidiisa u insha Allah ciidanka dhexdiisa yana gacanta lagu hayaa ciddii geysatay ka waraabiyo dambigiisana dhaafo ciddii gacantii dishay oo xaqdarro ku dishayna sida madaxda ciidanku sheegeen gacanta lagu hayaa sharcigana waa la marin doonaa isagana in ilaahay sharci xaqa la mariyo ayuu isagana ilaahay uga baryaynaa dhammaan reer ceelaf weyna waxaan leeyahay dee xubin ka baxday weeye mar hadduu ahaa ciidankii martida u ahaa nabadgelyada u joogay ee nabadgelyada ilaalinayay reer ceelafweyna wuu ka wada baxay ceelafweyna gaar ahaan baan ugu sii tacsiilaynayaa bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan uga tacsiilayaa xaaji cismaan aadan allah u naxariisto wuxuu ahaa nin wanaagsan oo xiriiriya xagga diinta islaamka waa maxamed shuta telefishinka qaranka Soomaaliland ceelafweyn gudoomiyaha degmada Sabawanaagna waxa uu ka warramay horumarka adeegyada bulshada degmadaasi iyo ilaalinta deegaanka gudoomiyaha degmada Sabawanaag ee gobolka Maroodi Jeex oo u warramay TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay adeegyada horumarineed ee ka socda degmada iyo sida ay ka maamulahaan waqtigan uga howlgaleen nabad guurka lagu hayo deegaanka iyo waliba go'aamo ay ka soo saareen waa kan gudoomiye Cabdilaahi Aadan Caabi oo faahfaahin ka bixinaya adeegyadaasi ka socda degmada oo ku wargalida xaaladda degmada iyo dadweynaha intaba iyo safar aan ku maraynay oo hawlo shaqo aan qabanaynay ahaa kaas oo dadweynaha gaarsiinaynay fariin nooga timid dawladda dhexe
oo ahayd in la joojiyey horena u jirtay aroosyada caasiga ah ama agaafafka waxa loo yaqaano iyo hadduu albidankeedii leeyahay iibinta dhulka bannaan iyo seerayaasha sharci darrada ah. fariimahana waanu gaarsiinaynay, kormeerna waanu ahayn muddo 10 cisho aha waxaanu ku sugnayn tuulayaasha degmada Sabwanaag ay xukunto oo aanu soo marnay bari iyo galbeedba oo aan ka xusi karo tuulayaasha Wacays Oodane, Roobla Cali, Cali Aadan, ina Hindise, Balli Shire, Reeda Madoobe, Cali Aadan, iyo tuulayaal kale oo fara badan sida Cagadoon, Qoton Dabo, Qoton Weyn, Balli Kaliil, Cali Heelo. tuulayaashaas oo dhan anagoo la kulmaynay maamulada iyo tuulayaasha iyo gudiyada tuulayaasha degmooyinka tuulayaasha dhammaantood waxaanu faraynay fariimaha ah in la joojiyey iibka dhulka bannaan oo imaka aad moodo in ay dhowaan yara xiriir furmatay, horena way u joogsanayd laakiinse dadyow caadaystay inay jebiyaan xeerarka ayaa jira. sidaa daraaddeed waxaanu ka howlgallay arrimaha si fiican oo qurux badan oo noogu soo dhamaadeen. halka warkaasi idinka imaanaya waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. iminkana wararkii dibadda. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa maalinta Khamiista booqan doona dalkaasi Russia si uu madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin ugala xaajoodo xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan Syria. waxaana sidaasi lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Turkiga. waxaana lagu sheegay in madaxweynuhu booqasho hal maalin ah ku tagi doono Russia bisha Maarish 5-teeda. Turkiga ayaa xaddi xaqiijiyay inay bilaabeen howlgallo military oo ka dhana ciidamada Syria ee Ruushku kadib isku dhacyo xooggan oo ka dhacay gobolka Idlib. xukuumadda Ankara ayaa taageertay dagaalyahano Islaami ah ee gobolka ayaa 19 askari oo Syrian ah ku dishay daqoomo ay ka fulisay diyaarado aan cid wadin maalintii Axadii, waxaana ay soo riday 2 diyaaradood oo maamulka Suuriya ay leeyahay. xiisadda ka taagan Syria ayaa toddobaadkii la soo dhaafay cirka isku shareertay kadib markii 34 askari oo Turkish ah lagu dilay duqeymo cirka ah oo lagu eedeeyay xukuumadda Dimashq. guud ahaan wadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warkayaga duhurnimo oo idinka imaanayay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. waad ku mahadsantihiin qadarka daawateen warka. waxay la socodsiinayeen anigu Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuura. intaynu warkan lamida ku kulmi doono. salaamu min Allahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.